بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع دمان ولا لقطة بيجكيga وإن سلامي ودرسي بحمد إسلامك waxaan kasoo sheekeynay cilmiga iyo sidoo ahaa musliminta dhexdooda iyo maktabaadkii majaalista cilmiga lagu qaadan jiray madaaristii masaajidii kataatiibtii maanta waxaan ka hadlaynaa hay-atul culamaa diyaarinta culimada ama dalabul cilmi wa tanshi'atul culamaa sida muslimiinta xoog u saari jireen in dadka ahlu cilmiga la diyaariyo dadka cilmiga gudbinayo maadaama nabi dambe uu soo baxay uusan jirin culimadu yihiin warasatul anbiyaa lam yurathu maalan walaa dirhaman wa inamaa warathul cilma marka ayaga marka dadka cilmiga u haayo oo u hogaaminayo marka muslimiinta sidaas oo kale waxay xoog saari jireen diyaarinta i'daadul culamaa majaalis cilmi iyo madaaris ay lahaayeen laga soo bilaabo saxaabada radwanullaahi calayhim ibn Cabbaas sida hore u sheegnay Caaisha radiyallahu anha Xafsa Salama Abdullah bin Mas'ud fi al-Iraq Abu Darda fi Sham fi Dimashq Abdullah bin Amr bin Aas fi Masr marka sidaas jiilba jiil loo kala dhaxlayo marka cilmiga marka qofka wuxuu sameeyaa marka inuu la fariisto qof caalim ah wajhan li wajh an dariiq al-ilqaa iyo marka ku bixi jiray oo qofka inuu caalim kale la fariisto oo muddo badan cilmiga ka qaato hadana caalim kale la fariisto hadana caalim kale la fariisto hadana caalim kale la fariisto fiqiga mid xadiidka mid tafsiirka mid quraanka mid siirada mid kasta caalimka qiraa'aadkii culuumul quraanki oo la fariisto marka intaas oo culum mutamakin ku noqdo oo qofka marka muddo badan oo cilmiga qaato iyo kadib u gudbiyo tadriisi ijaaza marka ilaahina uu sheegay inma yakhsha Allah min ibadil ulama ilaahi waxa ka cabsada dadka cilmiga leh oo wax garadka ayaa alla ka boqo marka madaaris waxa kale culimadu ay caan ku ahaan jireen ar-rihla fi dalab al-ilmi in loo safro cilmiga bidoon cilmin waxay xadaarada islaamka waxay ku istaagto waa cilmi waxay ku istaagto waa maxay ahaato dad aqoon oo hagay laga soo bilaabo rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada oo asaaska u jahay xadaarada islaamka oo salaf dhawrka u ahaa ilaa laga soo bilaabo waqtiga Haaruun marka xataa khulufada waxay go'aan ma qaadan jiray ilaa qof caalim fatwo u soo saaro oo maxay ahaato culum siyaas u sheegay imaam dawlad Cabbaasi marka istaagtay Abu Jacfar wuxuu ka dalbaday imaam Malik kitaab fiqhi oo dadku ku maamulo halkaas waxa ka dhashay kitaabka muwadda imaam Malik ka dhalatay maxay ahaato sidoo kale Abu Yaqub maxay ahaa qaadigii Abu Harun Rashid wuxuu qoray kitaab culum siyaas oo kale Bukhari sheekhiisa ku yiri no aruuri ahadiista nabi sallallahu alayhi wasallam وهكذا marka saasas culimadu waxay aan kuwa wareego oo magaalooyinka u kala goosho oo maxay tahay magaalada markii maxay ahayd cilmiga ka raacdo magaalada kale ka raacdo hadii magaalada culimo badan ay joogto kale مثلا oo asaga baahi loo qabin uu baxaya uu safraya waxay tahay magaalo kale oo baahi cilmi ka jirto aadaya magaaladaas markuu fariisto dadka way soo dhaweynayaan markaas noloshiisii wixiisa dhan dadka ka faal qaadi jiray markuu dawladda joogana dawladda ka faal qaadayso haduu qof mu'allif inuu tafriiq li ta'lifaat inuu wax qoro uu rabo kitaabku qoro miisaankiisa dahab dawlad Cabbaasi waqtigeeda la siin jiray marka waxa badan xarakatu tarjuma ay xarakatu naqli abaatay oo marka kontanka sana waxa ka xadaarada islaamka cilmiga islaamka inuu qof hogaaminayo jamiic funuun hadii xadiis ahaan hadii fiqh ahaan hadii tafsiir ahaan hadii siira ahaan lahayd hadii culumta kale aqliga dibbiga caafimaadka fiisiyaga waxaas kale ahaan lahayd kulli waxa ka caalim kasta fan walba oo cunuf funuunta cilmiga culumul aqliya culumul sharciya culumta banaanka u baahan intuu nool yahay iyo culumta shariicada oo ahkaamta qofka xuduudiisa iyo waajibaadkiisa baraysa intaba waxa arkaysa shakhsi baaris oo kontanka sana qof baa hogaaminaya oo inta kale ku daba faylaysa marka رحلadaas waxay keenin jirtay cilmiga islaamka inuu meel fog gaaray oo faafo intishaaran sharqan wa qarban bisaw rihlatul ulama iyo safarka oo sahlana qofka jawaasu safar iyo tigi maxay ahayd fiisi waxaas dhan aysan jirin oo caalimka magaaladan duu Ciraaq ka taga Shaam u tagaya bixuriyo ku tagaya dan Shaam ka taga Masar u tagaya Masar ka taga Shimaal Afriqiya u tagaya qoyga Afrika Andalus u tagaya bilaadu Khurasan Aasiya u tagaya afka maxay ahayd bilaad Sind Pakistan u ka tagaya marka ila jasiiradahaas Indonesia maras marka rihla fi dalab al-ilm waxay bisuhula qofka mushaqada safarka duruufta safarka u gaar ahaan oo kulma kasokow hadana dawladuhu ma ahayn dad culimada hor istaago oo maxay safarka ka manciya ama sida maanta uu yahay qofka inuu baxa ay rabto sababta fiisi iyo maxay tahay tigid iyo caqabada iyo warqado ogolaansho waxaas oo dhan uu raadinay ma jirin waqtiga islaamka adduunka hogaaminay marka taas waxay keentay marka culimo fara badan inay maxay ahayd mar walba culimada ay ahaadaan makaano weyn bulshada dhexdeeda ku lahaadaan makaano weyn ku lahaadaan rixiladuna ay noqoto mid fududeysa islaamka inuu meel kasta iyo dawlad kasta oo galo manzilada qofka ahal cilmigaana la soo dhaweeyo oo la maxay ahayd qofka ama masaajidka fadhiyo kale inta dadka wax baray markuu magaalo soo galo kale inta oo dawladda u yimaado la ixtiraamo sida muftuutar u sheegnay culimada iyo waxa soo dhaweyn jiray dadka saalixiinta soo dhaweyn jiray maxay fanku u xabaarsan yahay marka taas marka waxay keentay islaamku inuu diinu cilmin وحضارة وضع سعودين أهين علمي قسمك عالم قسمك مدة بدن وعلمك وبرت وسوى جاره
marxaladii u bilslaansho oo culamo badan oo imaam shaafici 9 sano wuxuu la fadhiyay imaam abu malik haddana ciraaq uu imaaday wuxuu la fadhiyay maxamed ibn xasan shaybani tilmiidkii iyo xaniifa haddana wuxuu imaaday shaam waxaas oo dhan muddo badan uu soo safro bukhaari wuxuu ka soo safray bukhaara ciraaq uu imaaday oo maxay uu kadib uu magaalooyinka dhan ku soo wareegay axaadiis aruuriyay markuu intaas qofka mutamakin ku noqdo waxa ugu xigta marka waxa la yiraahdo ijaaza waxa ugu xigta ijaazadu waa shahaado marka certificate-ka u dhiganta certificate-ka u dhiganta oo ah qofka inuu maxaan ahay fankan uu bartay uu awoodo inuu tadriisiyo inuu qofka la baro tadriisiyo marka sheekh cilmi uu ka qaatay warqad u qori jiray ama kitaabadiisu siin jiray ama wuxuu u fasixi jiray majliska asaga uu fadhiyo markuu maqan yahay asaga wax ka aqriyo taas ijaaza la dhihi jiray marka taas marka ardayga uu faan u ahaan jirta faqri u ahaan jirta inuu yahay tilmiid fulaan arday hebel ardayga waa ardayga sheekh fulaan marka maxay cadeynaysaa haduu warqad u qoro maxay qofkan maxay ahayd waa bislaaday waqti wax uu gudbin karo joogaa ama maxay ahayd majliskiisa uu fadhiyo inuu u fasaxo waqtiyada qaar inuu asaga wax diraasiyo dadka wax ardayda wax baro ama maxay ahayd qabuul inuu siiyo oo aqbalaad ah qofka inuu meel kale intuu tago oo majlis kale fariisan karo oo maxay ahayd oo cilmiga dadka ku faafin karo taas marka iyada maxay ahaan jirtay marka qofku inuu iska degdegin oo maxay ahayd uu noqon qof maxay ahayd hore ka boodo ama maxay ahayd aqoontii soo gaaban ama asagoon bislaanin funuunta cilmiga ama tamakin ku ahaan inuu qof kale iska gudbo kaas marka qofkaas kale waa tuuri jiray qofkaas kale matruuk u ahaan jiray hebel waa laga tagay ali jiray hebel waa la tagay marka cilmu jarh wa tacdiil xadiista markii la fiirina qofka mutqin inuu yahay jamiic الفنون isla mawsuuciyiin ahaan culimadii hore ma aha qofka mutaqassis bil حديث بس كنت تخصص فقهي ما يقان أو متخصص بالفقه تفسير كما يقان أو متخصص بالقراءات أما قراءات كليه يقان علومتك لما يقان لا ما جري وقت قاس فهو البقف كو برنجري حديث السيجار وبرنجري فقه السيجار لا علومة الشريعة ما كلها هاركرته ما كلها هاركرته مركز جميع الفنون قفكم هذه هكذا عالمك إمام النووي فانكي قراءات وكل حركة فانكي تفسير وكل حركة فانكي أحاديث وكل حركة كي فقه سيرة وكل حركة كل وقت إحنا موسوعيين أهين موسوعيين أو ما كقفك أصلا مسلانين وحمام ما قريجين وحنا ما جود وحنا إنه كثير بقى في رشد عالم تفسير كذا قاطع كتاب تفسير كله كتاب كله أحاديث كله كتاب كله تاريخ البداية والنهاية كله مصطلح كتاب كله ابن حجر سيدو كلنت سيودي سيدو كلنت إمام النووي سيدو كلنت قضيب البغدادي كل علماء المسلمين تاريخ ده ما زمان ما في رسو ما أركز هل عالم وهل فنكلية محي ولا غيره إنه فنك أبدية مثلا إمام فقيه إمام أحمد بن حنبل وفقيه لكن هذا حاجة حديث أبدية لكن ما أركز هل عالم وهل فنكلية كده مقدار لك فنون تكلم كم مقام فنون تكلم كم مقام والتاريخ ده قل أنا عرفت كل جود موسوعين أنت هذا بدل محي هاين ضد موسوعيين وجميع الفنون الإسلامية وراء كانوا شيء والراسخون في العلم هو دح دباشي ودح قلي علمي مركز كبعد يوقفهم كدرجة الإفتاء إنه فتوى أما درجة التدريس وجاره إجازة وقطة هلك كبعد يعني قلنا سمكة تاسع مكة حكي كنتي إسلام إنه لا إما هذا حضارات وروح بدن وكدوا الحضارة دي ومذي كلامته وشاملة أدونك نكو فافت حضارة كلا يونان كحضارة غريق إيه جاره إيه رومانس كجاره إيه أهل tan laakiin way ka duwan ummadaha dhan adduunka ay gashay adduunka gashay culimada wareegayso oo meel walba cilmiga ku faafinayso dawladihii muslimiinta faraha badnaa meel walba ka kacay oo culimada soo dhaweynayso ardayda oo faraha inta ka bateen madaarista oo aad u fara badatay taas waxay keentay islaamku inuu noqdo meel diin shaamil ah oo bari iyo galbeed gaaray ma min buqatin fil ardi illa islaamku gaar madaaris ibn batuta oo islaamka ku wareegay madaarista kaga hadla hal magaalo kaliya waxa laga yaabaa 300 oo madaris 400 500 madaris ugu timaadid gabdhuhu sidoo kale kaalintooda idan sida ragga kale ijaasada u qaadanay ee u qadimay sheekh wuxuu sheegay in gabdho oo siiyaan kitaabka sahih al-bukhari ijaaza ay ka siiyaan ku dul akhriyay ka bacdina ijaaza la siiyay marka taas ama xadaarada islaamka inay noqoto xadaarad shaamil oo waasica oo jamiic al-umam maxay wada gashay adduunka dhan ku faaftay bari galbeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.